maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waxaan ku magac dheerahay macallin muuse macallimiintii tababarka jirka ayaan ahaa la foole haddana waxaan isku dayaa xoogaa yar inaan manhajkan wax ka qabanno aniga iyo maxamed rabbi sidaa ujeedaan cayaaraha fudud waa meesha keliya soomaaliya ay ka liidato meesha keliya ugu xoog badan tahay laakiin dhibka aan qabno waxa waaye lama raadiyo cayaartooydii dugsiyadii xaafadihii degmooyinkii tuulooyinkii waxba lagama raadiyo ummadaha East Africa annagaa ugu liidano jiinis ahaan kama liidano laakiin dadkii raadin lahaa inta talent kala mawhibo u leh oo dhan ayaa laga fogaaday xoogayna waxaan saarnay kubadda cagta oo keliya marka ordada dhaadheer iyo ordada dhexe wax badan ayaan ku leenahay East Africaanka waxay qaadaan annaka waa la qaadan karnaa waxaa loo baahan yahay in culays la saaro kuwaasiti ordada gaar ahaan bootinta hal maraan boodada sare East Africa ka qaadanay sidaa ujeedaan meeshaan waxa waa tuuriyooyinka cayaaraha fudud sidaa la socotaan waxay ka kooban tahay ordo tuuriyo iyo bootin saddexdaasay ka kooban tahay darsigayna maanta waxa waaye tuuriyooyinka oo ah shotputka culayska la tuuraayo diskaska saxanka la tuuraayo javelinkana waa waranka la tuuraayo waxaa kala soo raacayo bootinta jumpingka waxaan duruusayna ku jirto waa long jump iyo high jump long jump waxa waaye boodada hoose high jumpna boodada sare markii aan soo noqono shotputka shotput waa tuuriyo lagu tartamo culays kubad balooni ah oo da' walbaba ama qolo muxuu ahay waxay leeyihiin culays u gaar ah gabdhaha waa gooni raggana waa gooni caruurtana waa gooni culayska ay tuuraayeen isku culays maaha marka culayska sida loo tuuraayo waxa waa hal gacan ayaa inta la saaraa kubaddii inta la saaraa la tuura lahaa qoloba siday u tuuraan laakiin kuwa professionalka waxa waa xoogaa inay hoos isu jileeciyaan ay boodaan ay markaas tuuraan raacaan isku dayaan meesha ugu fog inay gaarsiiyaan culayskaas shot put is one of the athletic throwing events competitors push and throw a heavy metal ball called the shot as far as possible using only one hand hal gacan keli ayaa lagu tuuraa qofka badinayna waxa waa kii meel fog gaarsiiyo rules uu leeyahay pedana garaangar uu leeyahay inuusan garaangartaa ka bixin markuu tuuraayo garaangarta gudaheedii ilaa geeskeeda ugu shishaysa wuu gaari karaa laakiin kama degi karo shotputkan wuxuu leeyahay pedana garaangar oo shamento ah afkeeda hore wuxuu leeyahay meel lugta soo celinayso ilaa meeshaas wuu gaari karaa qofka tuuraayo gacanta wuxuu saaranaa garka hoostiisi sidaasuu dhahaa wuu la boodaa waa la jeedsanaa waa tuuraa garaangartaas kama baxaayo garoonkeedii waa intaas sidaa ujeedaan sawirka
sidaanuu ku bilaabaa waa labaad saddexaad afaraad saas ilaa ugu dambeyntii releaska waa kana waa sii tuuray lugtiisina waa ujeediin meeshaasaa soo celinayso taas inoo gudba maaha garaangartaa gudaheeda hadda waxaan u gudbaynaa saxanka saxanka sidaa ujeedaan waa saxan metal ah ama loox laga sameeyey oo xoogaa culus mid walbana miisaan uu leeyahay u gaar ah dadka tuuraya waxay ku xiran tahay da-doodii iyo waxaa lagu qabanaa faraha foodoodii hore calaacashiyaa laga ilaalinaa dhexdaas marka qofka saxanka wuu la wareegaa bedaanadii isla bedaanay ku ciyaarayeen isla garaangartii dhexdeeda waay qofka waa sii jeesanaa meesha uu tuuraya maahana jihada kale u jeesanaa waa is wareejinaa xooguu raadinaa markaasuu is wiifinaa sawirka waa ujeedaan waa intuu ka bilaabay wuu la wareega rabaa wuu soo socdaa iidana waa markuu sii daynayo saxanka saxanka halkaas habaa loo dayn karaa fartan maruubiso agteeduu ka baxaa dhexdaan iyo gadaashaan maaha markaas waa wareegaa meel fog ma gaaraya tanaa lagu riixaa ugu dambeyntii marka cayaar kastaba shotputka iyo diskaska waxay rabaan iyo javalinka mar walbaba in tababar lagu qaato si maalinba maalinta ka dambeyso horumara u samaysid farsamadii lagaa rabi inaad mataqaanaa meel fiican ka gaartid objectiveska oo gameka dhammaan waxa waaye qolo walbaba inay ilaaliyaan discibliinka sharciga iyo inay isku dayaan inay badiyaan haddii laga badiyana waa inay oggolaadaan qofkii aan oggoleyn guul iyo guul darro sporti nooc kasta ha ahaado inuu galo cayaaro maba ahaba sharciga athletics waxaa ku arki doontaan buugga discipline markii la dhahayo waxa waaye garoonka cayaaraha fudud waxaa lagu soo galaa gurbaa soo galaayo hadba eventkii markaas socdo tartamada socdaan isla markii qolooyin hostes la dhahaa ayaa bixinaya bannaanka inaysan iska dhex wareegin meesha dhex taagnaanin garoonka gurubkii soo galo maahana kuwa kale waa baxayin oo cayaarta iska leh marka mar walbaba practicea loo baahan yahay waxaan practice lahayn meel laga gaarayo ma jiro adduunka methodology-ga marka hore macallinka waxaa laga rabaa inuu tusaale noqdo oo tusmo noqdo inuu garoonka tuso meeshay ku cayaarayeen hadday tahay garaangartii yareed iyo hadday tahay garoonkii weynaay musawirana ka qaado oo fiiri mar walba ardadaas progresska ay sameynayeen warantuurka waranka sidaa la socotaan xadiid nabigaa jira nabigeena salawaatu ullahi caleyh dhahaya man tacallama ramya rumxi wanasiya falaysa mina qofkii warantuurka barto oo ilaawo naga mid maaha macanihiisii waranka haddaa tuuryadiisii waa loo baahan yahay athlete kastaba inuu wax ka barto waagaasiitii waran iyo seefaa lagu dagaalami jiray laakiin hadda adduunkaas waa laga tagay marka hore koowaad waxa waaye garibkasoo u qaban lahaa warankaas meeshuu ka qaban lahay tan labaad waxaa laga rabaa culeyska soo meesha uu miisaankiisa oo dhexda ah inuusan afka hore ka qabanin inuusan gadaal ka qabanin meel miisaankiisi balance ah tan saddexaad waxaa laga rabaa meesha u tuuri lahaa kollaba xariijima xadidayso inuu meeshaas orod ku tago oo xariijintii loo sameeyey kadib uu tuuro sidaa ujeedaan
tii koowaad waa kana gribka ya qabashadii la socodkii ugu dambeyntii wuu tuuraa qofkan tartan kastabana cayaaraha fudud waxa waaye qofkii meel fog gaarsiiyo ama qofkii saacaddiisa fiicnaata orodadoo dhan waxaa lagu tartamaya waa saacad maaha qofka kula ordooyo maaha inaad sugtid saacadaa la tartamaysaa saacaddaas inaad ilaalisid qofka maaha mar walbood waxaan arkay ardayda waxay jecel yihiin hadduu ka hormaro inuu sugo finishing line-kan markuu gaaro qofka ordaayo inuu istaaga maaha oo isqaboojiyo markuu gudbo ka bacdi inuu isqaboojinaa warankii waa kana soo qabtay si fiican u qabtay la orday approachkii uu sameeyey xariijintii loogu talagalay uu gaaray markaasuu tuuray release sameeyey sidaa ujeedaan stepeska intuu ka soo bilaabay wuu la orday la ord waran dheer waayo lama ordi kartid sidaan caadi ah waana dhinac iska marisaa isu diyaarisaa tuuryada gacantaada aada baacisaa gadaal meesha ugu fog aad gaarsiisaa sidii aada xoog badan u heshid tuuryadaada garoonkan waa garoonka cayaaraha fudud orodada keliya hadda lagu calaameeyey waxaa naga maqan meelihii tuuryooyinkii la samayn lahaa orodada 100 mitir intaa laga bilaabaa orodadoo dhan horta intay ku dhammaadaan garoomada 400 mitir oo wareega ah 200 intaa laga bilaabaa starting waa kana intuu ku dhammaanaa 200 mitir 400 intuu ka bilaabana intuu ku dhammaanaa 1500 intay ka bilaabanay ila 100 kaana laga jaraa markaas wuxuu wareegaa 3 wareeg iyo googo marka cabirka garoonka mar walbaba haddii isku muxuu ahay ardayda waxay ku xiran tahay iskoolkoodii garoonka uu qabo dhulka baaxadiisa hadday weyn tahayna waa 400 inay ka samaystaan waa fiican tahay haddii uusan jirina 200 mitir laakiin wareega mar walbaba in la sameeyo asoo 200 ugu jiraa asoo 400 ugu jiraa boodada hoose long jump boodada hoose koowaad waxa waaye meesha aad ka boodaysid waxay leedahay calaamad xariijintaas ma gudbi kartid godka lagu dhacayo bootinta approachka laga rabaa waa oroday orodkiisina waxa waa aad speedka ugu xoog badan inaad ku orodid si mar oo sare u boodid meel fogna ku gaartid inta loo baahan yahay oo la rabo in la iska ilaaliyo waxa waaye meesha adiga talaabada ka bilaabaysid iyo meesha ugu dambeyntii talaabadaadii take off ka sameyn lahayd ka kici lahayd inay ku qiyaasan tahay soo talaabay inta lugta bidix ma ka bilaabay midig ma ka bilaabay take off kaagi tay ku xoog badan tahay labada lugood qof walba mid uu ku xoog badan yahay labada ma ku xoog badna midda ku xoog badan tahay inay noqoto tiin ugu dambeysay meeshaas godka afkiisi haddaad soo talaabaynin waxaa laga yaabaa lugta aadan ku xoog badnayn inay meeshaas kugu soo hagaagto markaas bootintaada meel fog aysan gaarin marka talaabooyinkaas waa aad daruuri u tahay muhiimna u tahay take off-ka waa sheegnay flight markaa hawada ku jiraa dhulku wuu ka kacay take off-kii wuu sameeyey lugtiisa ugu fiicneed ku kacay markuu soo talaabay si mar walba meesha waxa calaamad soo samaystay lugtaas meesha uga aadi lahayd haddaba hawadii uu galay kor u booday
waa duulay waxaa la rabaa soo dhicitaankii muhiim ah inuu hore u soo dhaco oo gadaal soo dhicin gadaal hadduu u soo dhaco hadba jirkiisii meesha ugu dambayso oo dhulka ku taabto calaamadda laga qaadaa si meeshaas cabirka laga qaadaan dhihi lahay si meeshaasitay uusan u dhicin horey isu soo tuuraan inta badan qof qalde maahana boodadu waa tana ranabka wuu soo orday intuu ku orday kaas waa bootintii waay fligtkii waay waa soo orday meeshaana loo calaameeyey inuu ka kaco wuu kacay hawadaasuu galay landingii intuu yimid wuu ku soo dhacay marka meeshii lugihiisi gaaraan inuu gadaal laga soo noqdo maaha hadduu gadaal u soo dhaco cabirka waxaa laga qaadaa halkan meeshuu gadaal u soo dhacay ilaa meeshuu ka kacay waa ujeedaan ninkan lugta midiguu ku bilaabay orodka lugtaanna waa loo calaamadeeyey macnihiisii tanuu ku xoog badan yahay oo ku kacaa qofkii bidix ku fiicanna bidixduu marka hore uu ku bilaabaa adu meeshaasiti aad ka kacaysid in lugta xoog badan inay kugu soo hagaagtaa ugu muhiimsan mar walbaba cayaar kasta noo ceerato ha noqoto waxaa loo baahan yahay tababar ku celcelin badan waa aqaanaa waxay kuguma soo degaya waa inaad ku celcelisaa teaching point vertical jump boodada sare it's important take off with the left foot roll and land on the left foot and touch the hands to the sand or mat. Why take off? Why back? Teaching point way dhici kartaa qof lugtiisa bidaxda ku fiicneen inkastoo dhinacuu ka imaanaya ku xiran tahay midig iyo bidix bootinta midigta ama lugta bidix ama midigta teaching point waxaa waaye short run orod dheer ma soo ordaysid waxa maaha boodada hoose maaha boodada hoose waxaa loo baahan yahay orod aada u dheer oo xoog badan oo saa dhulka aga kacdid tan laakiin waa intaasoo tallaabo ma fogaanaysa approach from the angle 45 to 60 waxay ku xiran tahay nooca boodada aad boodaysid right foot jumper should approach from the right side of the bar and vice versa iyo cagsigeedii increase the length of stride tallaabada aad qaadaysid tallaabooyinkaagii waxaa la rabaa inaad badisid dheeraysid si aad u kacdid take off there should be a powerful upward swing of the leading leg lugtaa markaasayti horeyso oo aad ku kacaysid outsider the thrust should be from the hip marka xoog wuxuu ka imaanaa center knee and ankle jilibka iyo canqowga joints of the take off foot flight waa kacday waxaa waaye roolaa samaynaysaa xerigii ama waxay lagu sameeyey korkiisii ayaa ku wareegaysaa sayna u noqonin boodo oo laba lugood oo toos ah marka madaxana xoogaa land on the take off foot lugtii aad dhulka kaga kacday ayada u soo dhac maxaa yeelay baaradii ayaa korkeeda ku wareegaysaa
ninkan right footka uu mar walba jecel yahay waa kuwaana a b c d baaradii ku kor wareegay si mataqaanaa uu intaasoo centimeter dheeraad u helo markuu soo dhacayna isla lugtii take-offka uu ku sameeyey oo soo dhacay position of the bar kala miirtay ee macnaysay markii qarsoon